mas-uuliyiinta dowladda hoose caasimadda Hargeysa ugu horeeyay maayir ku-xigeenka caasimadda Hargeysa oo weheliyo agaasimaha waaxda arrimaha bulshada iyo bilicda ayaa kulan la yeeshay gudiyada xarumaha caafimaadka iyo waxbarashada ee magaalada Hargeysa gaar ahaan gudiyada la shaqeeya mashruuca maamul daadejinta ee dowladda hoose caasimadda Hargeysa kala shaqeeya arrimaha waxbarashada iyo caafimaadka. kulankan ayaa lagu soo bandhigay 3 bilood ee ugu dambeeyay waxyaabihii uu qabsoomay iyo warbixinadii loo diray gudiyadaasi iyo qiimeyn lagu sameeyay waxyaabihii ay soo gudbiyeen gudiyada kala shaqeeya dowladda hoose caasimadda Hargeysa arrimaha caafimaadka iyo waxbarashada ee mashruuca GPLG. agaasimaha ururka dowladaha hoose ee loo yaqaan Algas Khalid Abdi Xirsi ayaa ka hadlay ujeedada kulankan. maanta waxaan halkan isku nimid inaynu isla qiimeeyno 3 bilood ee soo dhaafay reportkii soo baxay oo ahaa fariimihii la soo diray ama masiishadii oo ahaa monitoring ama dabagalka sida ay u shaqeynayaan xarumaha caafimaadka iyo waxbarashada ee dowladda degmada Hargeysa. runtii waxa lagu farxaa dowladda hoose Hargeysa oo ama degmada Hargeysa oo ku soo biirtay maamul daadejinta waxbarashada iyo caafimaadka muddo ka yar 2 sano inay noqoto degmada ugu fiicnayd xagga isku xirka maamulka iyo bulshada iyo waliba adeeg bixinta. maamulkii degmada dowladda hoose Hargeysa diyaar idin tahay in fariimaha soo dirteen waxbarashada iyo caafimaadka halkay taagan yihiin iskuullada xaaladoodii waxbarashada xaaladoodii dhammaantood in iyaguna maamulkuna toos la socdaan oo iyaguna diyaar u yihiin wax ka qabtaan. aad iyo aad baan idinku mahad celinayaa halka aynu ka sii wadno dadaalka hadii ilaahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يوسف علي oo ah agaasimaha waaxda arrimaha bulshada iyo bilicda dowladda hoose caasimadda Hargeysa ayaa ka warbixiyay waxyaabaha ay ka qabteen xarumaha caafimaadka iyo waxbarashada ee caasimadda Hargeysa ee la xiriira dowladda hoose iyo mashruuca GPLG-ga. waxa ilaahay mahadiya xaaladda iskuulada ku jireen oo record garaysan in isla sanadkii marka 2019 ka qiimeyntii la sameeyay Hargeysa oo ugu dambeysay degmooyinka ay noqotay degmadii ugu fiicneed degmooyinka dalka oo dhan isla markaana xaaladda aan isbedel la taaban karo oo intii la filiyay ka badan aan ku sameeyno taas horta ilaahay mahadi bino ahayd guul weyn oo ahayd sanadkan waa kii labaad baa imka socda isagana waxaan rajaynaynaa halkii meel ka fiican inay sii gaari doonto. maanta iskuulada Hargeysa caasimaddu intooda badan suuliye waxay leeyihiin dhameystiran oo wada marmara waxay leeyihiin suuliye u gaar hablaha qaarkood waxay leeyihiin qolalkii nasashada hablaha oo aanay habluhu marka hore meel gaar ah lahayn ay xaajadooda ku gutaan. waxay maanta iskuulada gabiga weyntooda badan dayactirka wada gaarsiinay mid yaro koonayaasha magaalada ama noo harsan oo isla bilaha haray iyagana aad gaadhaan hadii ilaahay yiraahdo biyuhu joogto helaan biyo nadiif ah oo la hubo oo biyaha wakaalada biyaha baa la siiyaa iskuul kastaaba helaan maanta. runtii xaaladaas isbedel bay keentay environmentka wax lagu baranayaa hadii la hagaajiyo tayada waxbarashadana kor bay u kacdaa. iminka kulan aanu la yeelanay maalin dhaweyto maamulka sare caasimadda iyo annaga iyo maamulada ama maamulayaasha iskuuladu waxa nooga soo baxay iskuuladii runtii public ahaa inay maanta ku private ka fiicin inuu kordhay numberka enrollmentka ardaydii iskuulada imaneysay ee laga diiwaan gelinayay inay kordheen baa soo baxday. waxa soo baxday iskuuladii inay maanta inoo wada buuxaan waxa ilaahay mahadiye iskuuladii private ka laga soo bedelinayay kuwa public wallahi inay maanta diidan qaar kamid ayaa meesha ka soo baxday. waxa idin guulahayd in iskuulo madnaa marka hore aan kilaasyo u dhisnay anagu inay kuwii kilaasyadii ka madnaana ay buuxaan kuwii extension kaan ugu sameeyay buuxsameen maantana sanadkan aan u dhisnay kilaasyo ugu kordhinay haddana ay codsanayaan in kilaasyo cusub loo kordhiyo markii numberka ardaydu batay. dhammaan arrimahaas waxa ku tusayaa in performance-kii kor u kacay in environment-kii hagaagay in dadkii markaa runtii ay ku soo hirinayaan oo lagu aaminayo ardaydii iskuulada public ah oo weyn ogeyn awal private-ka nin kastoo ladani caruurtiisa private bugaysto bas buu saar agoomihii ardaydii askarta caruurtoodii iyo dadkii jilicda sanaa ayaa runtii isugu haray marka hore iskuulada public ah. laakiin maanta waxaan hiigsanaynaa kuwaas inay noqdaan marjac la isugu soo baxa kuwa lacagta lagu soo yaacay insha Allah taala. idinka aad baan idinku mahadnaqaynaa guddigiina waxbarashada iyo caafimaadka oo wada shaqayn dhow runtii nalale oo runtii dadka isxilqaamay oo tabaruc ku shaqeeya ah guddiyada nabadgelyada guddiyada waxbarashada iyo kuwa caafimaadka runtii Hargeysa ama dowladda hoose Hargeysa meel gaar ah ugu qoray dadaalkan oo silmi laabi doona fariimaha iyo message-da idinka imanaya qolada score card-ku soo weydiisay dedejiya involvedna ku noqdo runtii sidii aan horeba imka markii dhow wada hadlaynay inaad mar walba xaaladda aad si step by step la socotaan
aad baan dhammaantiin idin bogaanidinaya waxaan kusoo dhaweyn doonaa maayir ku-xigeenka caasimadda aad baad mahadsantihin maayir ku-xigeenka caasimadda hargeysa cabdicasiis maxamed xaashi cagaweyne ayaa xusay ka maamul ahaan in ay ka falceliyaan waxyaabaha ka soo baxa warbixinada ay soo gudbiyaan guddiyada caafimaadka iyo waxbarashada ee la xidhiidha mashruuca GPLG islamarkaasina ay fuliyaan idinku warbixinta ah ka keentaan iyo xidhiidhka sida tooska ah aynu u wada leen ninka dawlad hoose ahaan marka aad soo gaarsiisaan agaasimaha warbixintii wixii MCH-ku u baahnaa in biyihii la gaarsiiyey inaan la gaarsiin wax kasta wixii loogu talagalay in laga qabtay inaan laga qaban iskuulladu waxay u baahnaayeen marka baahiyay soo sheegtaan dawladdii hoosena oo khatartaga baahidii lasoo qoraysto kuraas bay u baahan yihiin waxay u baahan yihiin qalabkii caafimaadka qalabkii nadaafadda wax walba markii la ogaaday iskuulladii xitaa waxaynu gaadhnay inaynu qolol u gaara u samayno marka suuliyadii la hagaajiyo in haddana tiimkii suuliyada hagaajinayay in miisaskii loo hagaajiyo in kuraastii loo hagaajiyo in qalabkii caafimaadka la siiyo in taangiyadii biyaha loo shubo in faraxalkii loo sameeyo in xitaa saabuuntii lagu farxalinayo loo dhigo oo istoorka ugu jiraan in qol u gaara hablaha loo sameeyo waxaasoo dhan waxaanu ku gaadhnay markaanu taladiina helay markaan la tashigiina helay markii idinkii inagu aynu isu soo dhawaanay ee communitygiina markaan isku soo dhawaanay aan nahasheen annagana markaa qadar warbixinta soo gaarsiisaan fulintay soo gaarsiiyaa fulinta oo garwadan ka yahay duqa caasimaddu ku-xigeenkiisii aan hayo xogeyaha dawladda hoose saddexdeedaa markana la soo gaarsiiya go-aan qaadanno aanu degdeg uga soo jawaabno baahidii waxay keentay inaan number 1 noqonno waan u mahadnaqayaa alkasal oo hadalkaa run ka sheegtay runtii waxa kalean halkan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa agaasima qadar iyo tiimkiisa mar labaad mar saddexaad waxaan u mahadnaqayaa communitygiina si ay isu xil saarteen mas-uuliyadda aa muujiseen iyo aakhiraba waa ku faa'idi doontaan abaalmarinna waanu idin sii doonnaa haddii ilaahay idhaahdo xidhiidh ka sii dhowintana waynu yeelan doonnaa aakhirana insha allahu ilaahay miisaanka xasanaadka ha idigu daro